waxaan si gaar ugu mahadcelinaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda federaalka ah oo aad iyo aad iskugu howshay si caafimaadka iyo tayeynta iyo suuqgeynta xoolahaba aad uga shaqeyso wax badanna ka qabatay. waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanaynaa in gacan laga geysto sidii tallaalka loo gaarsiin lahaa xoolaha. waxaa la wada og yahay in xoolaha ay yihiin nolosha dadka Soomaaliyeed. dhaqaale ahaan dadka Soomaaliyeed inta ugu badan waxay ku nool yihiin xoolo ama waxay ku nool yihiin wixii xoolaha ka soo baxay. dhaqaalaha dalka lacagta ugu badan ee adag ee timaado waxay ka timaadaa iibka xoolaha, hilibka xoolaha iyo maqaarka xoolaha. waxaa kale oo xoolaha ka qayb galaan ilaalinta nafaqa darro fara badan oo dadka Soomaaliyeed gaari lahayd, gaar ahaan caruurta iyo dadka da'da weyn iyo dadka xanuunsan oo ay suuragal noqotay intaasoo sano oo dagaal dheeraad nagu socday inay dadkayna inta badan ay ka badbaadaan nafaqa darrada. It is my pleasure to be with you today and to launch this is the fifth PPR vaccination campaigns in Somalia. I'll make it very short. As you are aware, Somalia is one of the leading exporters of livestock to the Middle East from the Horn of Africa. The xoolaha Soomaaliya ma wixii wax loogu tarayo waxaa naga mudan kaliya inaan soo dhaweyno aan taa naga mudan taas ahayd waa soo dhaweynaynaa hawsha aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxaan rabaa aniga insha Allah inaan u mahad celiyo dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo hawshaan in badan ku soo jirtay, walaasheeda u mahad celisay, waqti badanna soo maray, waqti badanna geliyay, suuragalna ka dhigay xoolaha Soomaaliya in ay adduunka u dhoofaan. wadasoortii markii la soo celiyay 2002 ee dhakhaatiirtan istiqaamada sameeyeen xilligaa wixii ka dambeeyay xoolaha Soomaaliya inta badan waa socdeen waa dhoofayeen. waxaan isleeyahay tallaalada hadda la qabanayana inay muhiimad badan u leeyihiin in xoolaha Soomaaliya ay dhoofaan. Soomaaliya laf dhabar bay xooluhu yihiin, qofka hadduu gacanta ka go'o waa socon karaa. talaalkan waxaa fulinaya ururada xirfadleyda caafimaadka xoolaha iyadoo wasaaraddu ay ku sameynayso kormeer iyo qiimeyn joogto ah hadba oo la xiriirta hadba xaaladda iyo heerka uu marayo talaalka. wasaaradda waxaa ka go'an inay ka shaqeyso caafimaadka xoolaha, horumarinta wax soo saarka xoolaha iyo suuqgeynta.